iyadoo lagu guda jiro maalintii labaad ee munaasabada Ciid al-Adha ayaa waxay hay'adda khayriga ee Somtrack DC oo ah hay'ad khayriye isla markaasina ka shaqeysa arrimaha samafalka ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka sameysay qalitaanka ari loogu talagalay udxiyada isla markaasina hay'addu u qaybisay dadka danyarta ee ku nool magaalada Burco. Hay'addan khayriga ee Somtrack DC ayaa waxa barnaamijkan khayriga ka caawiyay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta. ugu horeyntii waxa faahfaahin ka bixiyay mashruucan khayriga ah ee dadka danyarta ee ku nool magaalada Burco lagu gaarsiinayo udxiyada. محمد عثمان عبد وهو قدومية هيئة خيرية سومتراك DC وحنا ومهد عليه هيئة بيش عاصي إمارات كعربتها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، في دولة الإمارات العربية المتحدة نتقدم لكم ونيابة عن شعب أرض الصومال الشقيق لتهنئتكم بعيد الأضحى المبارك للعام 1438 هجرية الموافق 2017 ميلادية. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى سائر الأمة الإسلامية. وبهذه المناسبة الكريمة يسرنا أن نعرض عليكم برنامج ذبح الأضاحي لوجه الله تعالى والمقدم من قبل هيئتكم الموقرة الهلال الأحمر الإماراتي. وكما ترون تم توزيع الأضاحي على المحتاجين من الفقراء والمساكين في مدينة برعو، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم على الجهد المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo wada xooriyo hay'adda khayriga ee Somtrack DC ayaa ah hay'ad khayriye isla markaasina si ballaaran uga shaqeysa arrimaha samafalka qaybihiisa kala duwan. waxaanay hay'addani samaysaa mashruucan udxiyada sanad kasta. وخالد بكيلة فوقانا رقو حرطة ستار TV برعو.